Donald Trump inta xilka uu hayay waxa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka in ka badan 11,000 oo fariin qoraaleed. 2,405 ka mid ah waxa uu ku weeraray xisbiga dimuqraadiga ee siyaasad ahaan liddi isku yihiin. 5,889 ka midana waxa uu ku weeraray shakhsiyaad. 1,710 ka midana waxa uu ku buubuuniyay waxa uu yeero mu'aamarada lala maagan yahay Mareykanka. 851 ka mid ah waxa uu ku hanjuubiyay dadka lagada tiro badan yahay ee Mareykanka ku nool. 36 ka mid ah waxa uu ku sheegay warbaahinta inay tahay cadawga dadweynaha Mareykanka. 570 ka midana waxa uu ku weeraray dadka soo galootiga ah ee qaxootiga ku ah gudaha dalka Mareykanka. 226 ka midana isaga ayaa ku faaniyay waxqabadka inta xafiiska uu joogay. 132 ka midana waxa uu ku ammaanay xukunkii kala geystalisnimada. New York Times ayaana lagu qoray. Anigoo Maxamuud ayaan idiin soo turjumay. Daawadayaal, ha hilmaamin inaad subscribe dhahdo channelkeena Bulsho Kaaba Media, gambaleelka u furo, naguna xirnaaw mar walbana nala noqo saaxiib. Tan iyo kulan dambe saaxiibadaanu jecelnahayow. Nabadgelyo.